dowladda Jabuuti ayaa deeq raashin ugu deeqday dadka ay saameysay abaarta ee ku nool deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan waxaana wareejinta deeqdan goobjoog ka ahaa danjiraha dowladda Jabuuti u jooga Soomaaliya taliyaha guud ee ciidamada AMISOM maamulka gobolka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda danjiraha dowladda Jabuuti u jooga Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay ka qayb qaadanayso sidii loo caawin lahaa dadka ay saameysay abaarta waxa kaloo sharaf nooc sidii madaxweynaha iyagu amray inaan kala qayb qaadano madaxda gobolka kala qayb qaadano gurmashada ku tabaaloobay abaaraha oo raashin aan halkan iyo ilaa Buurburte ilaanahay wixii laga gaarsiin karo laga gaarsiiyo gurmad degdega mustaqbalkana hadii ilaahay yiraahdo aan diyaar u nahay wixii kale ilaahay noo dhiibo inaan maartaan la soo gaarno marka madana gudoomiye waxaan rajaynaynaa inaad maartaan naga guddoonto oo aad naga aqoonsato gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa amaanay doorka dowladda Jabuuti ay ka qaadanayso caawinta dadka ay saameysay abaarta ee ku nool deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan waxa halkan dhinaceena iyo gadaasheena yaalay waa raashin gurmad ah oo ugu talagalay dadka abaaraysan ee gobolka Hiiraan waxaana ugu deeqay dowladda walaalaheena ee Jabuuti mana aha kii koobaad mana aha kii labaad wax kii koobaadna ma kii labaadna ma gurmadku markasta oo problem noocaan u dhaco gurmadkoodu waa ina soo gaari jiray haddana mid ka badanna waa ka rajaynaynaa haddii alla gurmad intaa ka fogna waa ka rajaynaynaa waxaanaan iloobi karin booqashada iyo waqtiga dheer oo ay fursadda ayna siiyeen maanta excellency safiirka dowladda Jabuuti Soomaaliya generaalkii ciidamada AMISOM oo waqti aad runtii munaasib noogu ah na soo siiyay fursadooda waa idin mahad celinaynaa welcome beledweyn welcome ku soo dhawaada gurmadkaas aad u fidiseen dadka walaalihiina ee reer beledweyne ama reer Hiiraan excellency waa idinka guddoonay maxamed cabdi sanay telefishinka caalamiga ee bulsho beledweyn